kulanti wacan u wanaagsana qiyaarta hawada naga daawaneysay ku soo dhawaada warka telefishinka ilaa shirka golaha wadatashiga qaranka oo maanta warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliska ciidanka xoogga dalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo maanta shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo saaray wareegta ku socoto xafiisyada hay'adaha dawladda ee dalka Puntland oo maanta loo dareeray doorashada codbixiyaasha golayaasha deegaanka ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay qaybo kamid ah degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir hubna ku soo qabtay maamulka gobolka Banaadir oo laabaha amniga kala shiray sugidda amniga magaalada Muqdisho gawaarida mootobajaajka oo maanta ka dhaqan galay magaalada Muqdisho intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka ilaa